assalaamu calaykum akhyaarta. maanta waxaan idiin wadaa 5 cashar oo ay dadku ka bartaan gadaal ama ay dib ka ogaadaan. haddaba maxay yihiin casharadan ay dadku ka ogaadaan gadaal inta ay nool yihiin? casharka koowaad waa waqtiga tegay. marar badan ayaa waqtigu kugu dhaafaa si maalayacniya adigoona ka faa'iidaysanin. haddaba ogow, waqtigu hadduu kaa tago oo si ciyaar kugu dhaafo, maalin baad gadaal ka ogaan doontaa waqtiga qiimaha uu leeyahay iyo waqtigaad haysatay inaad haysatay fursado aad u badan. haddaba waqtigu waa waxa ugu weyn ee ay dadku gadaal ka ogaadaan ama ay gadaal uga shallaayaan yaa waqtigaas kuu soo celiya. haddaba waqtigaaga ka faa'iidayso. casharka labaad waa lacagta. casharkan waa casharka ugu weyn ee ay gadaal ka ogaadaan dadku inta aysan ka tegin ka hor ama aysan waayin. lacagtu mar ayay ku soo martaa, markaasna waxay kaaga baahan tahay inaad u qorshishid sida aad u bixin lahayd ama meelihii aad ku bixin lahayd. haddaba lacag haddii aad haysatid oo aadan garanaynin qaabkii aad lacagtaada aad u bixin lahayd ama qaabkii aad lacagtaada aad ugu samayn lahayd qorshe, haddaba la soco lacagtaada iisan ciyaar kaaga bixin. haddii kale maalin maalmaha ka mid a baad waxaad ogaan doontaa qiimaha ay leedahay lacagtaadii, ama waxaad baran doontaa lacagtu waxa ay ahayd. haddaba lacagtu way kaa tegi doontaa, mar dambana kuuma soo noqon doonto. casharka saddexaad ee nolosha ay dadku gadaal ka ogaadaan ama aysan marka hore ayna horay ka ogaanin waa nolosha. noloshu way go'an tahay, waxayna leedahay limit. dadku marka hore ma oga wax walba inay limit leeyihiin ama wax walba inay go'an yihiin. dadku marka hore ma oga, balse gadaal ayay ka ogaadaan inay wax walba ay go'an yihiin ama wax walba ay limit leeyihiin. haddaba la soco oo hadda qorshee wax walba inay limit leeyihiin. casharka afraad ee nolosha ay dadku gadaal ka ogaadaan waa talooyinka iyo fikradaha wanaagsan. haddaba haddii aad haysid fikrad wanaagsan ama lagu siiyo fikrad aad u wanaagsan, haddaba ka faa'iidayso talooyinkaas wanaagsan iyo fikradahaas, waayo maalin ayaad weyn doontaa inaad fikradahaas aad qaadatid ama qof kuu sheega intaba aad waayi doontaa. haddaba fikradahaas qaado. casharka shanaad ee ay dadku nolosha ay gadaal ka ogaadaan waa casharkan wuxuu quseeyaa qofka hadday daawanaya ama adiga haddeer fiirsanaya. casharkan wuxuu ku leeyahay maalin walba waa adiga guushaada, maalin walba oo aad kacdid waa adiga guushaada. haddaba waxaad dhici karto inaad ogeyn arrinka inay maalin walba ay tahay fursadaadii oo adiga aad haysatid ama guushii aad adigu haysatay, balse aadan ka faa'iidaysanaynin. haddaba haddii aad muuqaalkan daawanaysid, casharkan nolosha aad ayuu ku anfici doonaa ama aad ayuu noloshaada saamayn kugu yeelan doonaa haddii aad ka faa'iidaysatid sida uu yahay, ama marka horeba aad ku sii talageshid wax walba inay yihiin wax